waa xilli uu ku guda jiray raadinta nolol maalmeedkiisa ma hayo goob uu u shaqo tago waxaanu si kadisa ugula kulannay waddo ka mid ah waddooyinka magaalada Kismaayo waana shakhsiga ugu caansan uguna gaaban shakhsiyaadka ku nool magaalada Kismaayo magaciisu waa Maxamed balse waxaa magaciisa ka weyn naanaystiisa oo ah Bikole way daadad ma qaba waa 41 sano jir aanan islahayn daadiisa iyo muuqaalkiisa weligiis muusan guursan xitaa muusan helin shaqo uu ku maarayo noloshiisa wuxuuna ii raaciyay in maalinkii uu helo lacag aanan ka badnin 10,000 oo shilinka Soomaaliga ah haddaba sidee ayuu ku maarayaa noloshiisa maalinlaha marka maxaa khudda soo kacay maxaa saldhiga maxaa ka raadinayaa baahi ina soo saxado hadii soo helay hadii soo waro xaafadda soo qora waa sahlan saar maxaa sameyn karaan soo qora heradan gala isdibiraya shaqun leekuna kale maxaa ka dhigaa siinta ka dhigaya waagii hore wuxuu cabsi baqdin ka qabi jiray dadka haba ugu darnaatay carruurta maadaama ay ku maadaysan jireen muuqaalkiisa hase yeeshee wuxuu ii sheegay inuu ammaan ka helay uu ku guuleystay in xurnimo uu ku maro waddooyinka magaalada Kismaayo mama meelan sare ka sare caadi waa shaqada ila gacanta watigani shankar male bulshada Soomaaliyeed ayuuna ka codsaday inay gacan qabtaan maadaama uu yahay dhibane duruufo iyo baahiyo badan u saaxiiba wali bashay kala kiyo ni maski waniya andi jibril ka taji jibira ama tajiya maka mo balegada maxaa ku shaqaysanaya markani ma libo iyo kikalani kuliani waa lagu wani mara mube kana wanta mube ka maisha ni mube wana wantani aje na wanta kasi kan tambah kasi karani mube likena ama kala agisiya ama kala banaki turani way xasi iyo carruur amba walaal dad alno sham jiraan aturiya haga dheer iyo gusha aaboy hawartina waa dhintay